daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo wararkii ugu dambeeyay ninkii garabka u ahaa madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu mucaarad yahay isla markaana furanaya xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah cali maxamed geedi ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo ka soo horjeestay mucaaradnimada inuu mucaarad ku noqdo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana in muddaha garabkiisa ahay asayeesha wuxuu ku dhawaaqay maanta inuu soo dhisayo xisbi mucaarad ah isla markaana uu sheegay inuu maalinta Arbacada ku dhawaaqayo ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka federaalka Soomaaliya cali maxamed geedi ayaa sheegay in dhawaan uu magaalada Muqdisho kaga dhawaaqi doono xisbi cusub oo waliba mucaarad ah isla markaana ka soo horjeesan doono qaladaadka ay dowladda farsamayso ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu isagu hogaamin doono xisbiga isla markaana uu noqon doono mid mucaarad ku ah dowladda sida uu hadalka u dhigay caawa oo xalfad uu hadal ka soo jeediyay khudbad uu ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo maanta Muqdisho loogu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish ayuu cali geedi ka sheegay inuu dhisayo xisbi mucaarad oo la diiwaan gelinayo isla markaana mucaarad aad ugu culus ku noqon doono madaxweyne Farmaajo ayaa in muddo ah uu difaaci jiray isla markaana garabkiisa ahaa hase yeeshee in badan ayuu mucaaradka garbaashay cali maxamed geedi waxa uu sheegay xisbiyada siyaasadda ay sharci yihiin isla markaana uu meel mariyay baarlamaanka isla markaana madaxweynaha digreeto ku ansixiyay waxa uu xusay in xisbigiisa yahay mid wax dhisaya isla markaana uusan noqonayn mid wax duminaya sida uu sheegay ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa xisbigan cusub magaalada Muqdisho loogu dhawaaqi doonaa ayuu yiri maalinta Arbacada soo aadan oo taariikhdu ku beegan tahay 9 bisha 10aad ee sanadkan aan ku jirno cali maxamed geedi ra'iisul wasaarihii hore ayaa lagu tiriyaa siyaasiyiinta aad ugu dhow dowladda federaalka Soomaaliya isagoo dhowr jeer difaacay isla markaana garabkiisa ka soo saftay madaxweyne Farmaajo isla markaana dowladda dhammaanba difaacay sidoo kale cali maxamed geedi ayaa lagu xusuustaa weeraro afka ah oo ku qaaday siyaasiyiinta ka soo horjeedo siyaasadda ay dowladda ku maamusho dalka isla markaana dad badan markay ka soo horjeesteen asigana uu aad u difaaci jiray hase yeeshee waxa uu sheegay inuu furanayo xisbi mucaaradeed isla markaana wax dhisaya halka naga daawanaysa waa calansida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso ah oo fresh ah